Sheekada Kuchisake Onna oo ahayd haweeneydii afka jeexneed ayaa waxay sheekadeedu ka bilaamatay sanadihii Japan ee u dhaxeeyay 60meeyadii ilaa 80meeyadii. Sida ay dadku sheegaan, waxay ahaan jirtay haweeney bini'aadana taasoo si xun afkeeda loo jeexay iyadoo laga soo bilaabay dhegta oo markaas lagu joojiyay dhegta kale. Qaybo ka mid ah sheekada waxay ahayd markaas inay ahayd iyadu haweeney oo uu qabay samurai kibir badan oo markaas gogol dhaaf sameysay. Si uu ugu ciqaabo khiyaanadeeda, ninkeedii markaas wuxuu ka jeexay afkeeda oo uu ka bilaabay jeexitaankii dhegta oo uu ku joojiyay dhegta kale. Qaybo kale oo sheekada ka mid ah waxaa la sheegaa xilli ay xanuunsanayd oo u socotay daawooyin caafimaad ay markaas afka ka jeexday haweeney taasoo ka masaysanayd quruxdeeda. Sidoo kale waxay sheegaan inuu afkeeda ka buuxo ilka aad u fara badan oo markaasi aad u afaysan. Markii ay geeriyootay kadib, waxay soo laabatay iyadoo ah markaasi ruuxaan caraysan oo u socota aargoosi. Badanaana markaas waxay xiran jirtay face mask iyadoo ku qarinaysa wejigeeda. Dadka qaarna waxay sheegaan inay afka ku xirato maro gacanta lagu tolay. Waxa ay badanaa qaadataa shay aad u afaysan, kaasoo dadka qaar ay sheegaan inay tahay mindi ama baangad ama sidoo kale maqas aad u weyn oo afaysan. Waxaa la sheegaa inay u timaado qofka ay rabto, kadibna ay weydiiso inay u malaynayaan inay qurxan tahay. Haddii ay ku jawaabaan maya, isla meeshaas ay taagan yihiin ayay ku dishaa. Haddii ay jawaabtooda tahay haa, waxay iska qaadaa marada, kadibna waxay tustaa afkeeda sida xun u jeexan. Markaasna waxay weydiisaa isla su'aashii ah, ilaa hadda ma qurxanahay? Haddii uu qofka ku jawaabo maya ama uu cabsi muujiyo, isla markiiba qofka waxay ku dilaysaa hubka ay wadato. Haddii uu qofka ku jawaabo haa, waxay soo qaadanaysaa hubkeeda, kadibna si xun ayay afkooda u jeexaysaa ayadoo u ekaysiinaysa qaabka uu wejigeeda u jeexan yahay. Qof wuxuu ka badbaadi karaa markii uu la kulmo Kuchisake Onna asagoo isticmaalaya dariiqooyinka mid ka mid ah. Qaybo ka mid ah sheekada Kuchisake Onna waxaa la sheegaa inay iskaga tagto qofka haddii uu markaasi haa ugu jawaabo labada su'aalood ee ay weydiisay. Sidoo kalena qaybo kale waxaa lagu sheegaa inuu qof uga badbaadi karo asagoo markaasi sifeynaya qaabka wejigeeda u yahay inuu yahay dabiici, markaasna waqti uu ka helayo si uu uga cararo inta ay fakarayso. Qaybo kale oo sheekada ah waxaa ka mid ah in qofkii ka soo baxsaday markaasi xilliga habeenkii markii ay tahay ay soo booqanayso meesha uu degan yahay, kadibna ay dilayso inta ay iyagu hordaan. In la arko Kuchisake Onna marmarka qaar xataa maalintan la taagan yahay waa ay dhacdaa. Sidaas darteed waa inaa is ilaalisaa, sababtoo ma ogid xilliga aad la kulmi doontid Kuchisake Onna haweeneydii afka jeexneed.